waxa uu ahaa iskuulkiisa kuleejada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika meesha uu Kofi Annan ninka marka dambe noqon doona diblomaasiga ugu sareeya caalamka ka bartay mid kamid ah casharadiisii ugu muhiimsanaa. casharadaas waxa uu ahaa sida uu goor dambe sheegay in xanuun kasta oo la dareemo oo khuseeyo dadka oo dhan meel kasta oo ay joogaan. fikirkaas waxa ay u muuqatay mid si dhab ah Annan uu ugu dhaqmayay intii uu noolaa oo idil, waxana ay sababtay in uu door muhiim ah ka ciyaaro xal u helidda dhibaatooyinka ka jira dunida sida saameynta HIV/AIDS, dagaalka Ciraaq iyo isbeddelka cimilada. howlihii uu ka soo qabtay arrimaha bini'aadanimada waxa ay sahleen in uu ku guuleysto abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize, balse waxaa sidoo kale u soo jiideen xoogaa dhaleecayn ah. Annan oo ahaa ninkii ugu horeeyay oo Afrikaan madow ah hoggaanka u qabta qaramada midoobay, waxa uu noqday mid kamid ah diblomaasiyiinta ugu caansanaa ee soo mara taariikhda casriga ah. Kofi Ato Annan iyo walaashiis Iwafa Ata oo mataana ahaa waxaa bishii Abriil ee sanadkii 1938 ay ku dhasheen magaalada la yiraahdo Kumasi ee dalka Ghana, xilligaas oo loo yaqaanay xeebta dahabiga ah. marka la isku keeno magaca hore ee mataanaha oo ah Kofi iyo Iwafa oo micnaheedu yahay waxa ay dhasheen jimce oo luqadda Akaanka ah, halka magaca dhexe ee Ata oo ay isla wadaagaan uu micnihiisu yahay mataano. waxa ay ku soo dhex koreen qoys maalqabeen ah. awoowayaashiis waxa ay ahaayeen hogaamiyaal dhaqameed, halka aabihiis uu soo noqday barasaab gobol, waxana uu ku soo barbaaray waddan markaas weli ku jira gacanta gumaysiga. 2 maalmood ka hor inta uusan diblomaasiga mustaqbalka gelin dadiisa sanadkiisii 19 waxaa dalkiisu u qaatay xorriyadda, waxana uu markaasi noqday Ghana. xitaa markii uu weynaaday Anna waxa uu ka sheekayn jiray saameynta farxadeed ee ay ku yeelatay helitaanka xorriyadda. waxaan banaanka u soo baxay anigoo dhalinyaro ah oo aaminsan isbeddel uu suurtagal yahay. sidaas ayuu koox ay isla joogeen Canada ku yiri sanadkii 2012 kadib markii uu dhameystay jaamacadiisii koobaad waddanka Ghana oo markaasi cusbeed waxbarashadiisa labaad ee dhanka jaamacadda waxa uu ka dhiganayay waddanka Mareykanka. isla markaa waxbarashada heerka labaad ee jaamacaddana waxa uu dhameystay shaqadiisii ugu horeysay waxa uu la bilaabay qaramada midoobay. booskaas shaqo waxa uu ahaa mid kamid ah howlwadeenada dhinaca maaliyadda ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ka tirsan qaramada midoobay. markii uu qabanayay shaqadaas waxba kama uusan ogeyn in muddo 40 sano oo xilliga soo socotay in xirfadiisa ay sii jireyso ayna heerka ugu sareyso ay gaarayso sanadkii 1997 markaas oo loo doortay inuu noqdo xogayaha guud ee qaramada midoobay. laakiin inta uusan halkaas gaarin waxa uu wajahay mid kamid ah fadeexadihii ugu waaweynaa ee soo mara shaqadiisa. sanadkii 1993 Annan waxa uu ka shaqo bilaabay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay, waxaana madax looga dhigay howlaha nabad ilaalinta. sanadkii xigtay dad gaaraya 800 oo kun oo isagu markaasi ku jira qabiilada la yiraahdo Tutsiga iyo Hutuga ee qunyar socodka ka ah ayaa lagu xasuuqay dalka Rwanda muddo 100 maalmood gudahood. kadib sanadkii 1995 ilaa iyo 8,000 oo muslimiin ah ayay ciidamada Serbiya ku laayeen, waxaana loogu yeeray goobta ammaanka ah ee qaramada midoobay. kadib sanadkii 1995 ilaa 8,000 oo muslimiin ah ayay ciidamada Serbiya ku laayeen, waxaana loogu yeeray goobta ammaanka ah ee qaramada midoobay oo ku taalay Bosnia. labadaas dhacdo ayaa culays weyn ka soo wajahay Annan iyo waaxdii uu mas'uulka ka ahaa ee qaramada midoobay, gaar ahaanna markii ay soo shaabaxday in waaxda nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay iska dhaga tirtay macluumaad badan oo loo soo gudbiyay kuwaas oo ka digayay in xasuuq laga maleynayay Rwanda. markii la xusayay sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegatay xasuuqaas, Annan waxa uu qirtay in uu markaasi ka gaabiyay ka hortagidda xasuuqaas baahsanaa. aniga qudhaydu maadaama aan waqtigaas ahaa madaxa howlaha nabad ilaalinta ee qaramada midoobay, waxaan dalal fara badan u diray ciidamo ayuu yiri sanadkii 2004. waxaana aaminsanahay xilligaas inaan sameynayay waxa ugu fiican, balse waxaan garowsaday xasuuqa kadib in xilligaas
qaban karay waxyaabo badan oo ahayd inaan qabto si aan ugu gacan geysto ka hortagidda xasuuq intaas la eg. iyadoo ay jirto fadeexadaas ayaa sanadkii 1997 isaga oo 59 jir ah waxa uu ku guuleystay in uu qabto xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay. Annan waxa uu dhaxlay xukunka hay'ad 52 sano kadib aas-aaskeedu uu culays badan saarnaa, deyn fara badanna lagu lahaa. waxa uu dib u habeyn ku sameeyay howlaha qaramada midoobay isaga oo shaqo dhimis fara badan sameeyay si uu Mareykanka u siiyo deymo uu ku lahaa qaramada midoobay. waxa kale oo dadaalo u galay in wax laga qabto saameynta cudurka AIDS-ka. waxaan dhihi jiray xarfaha SG looma soo gaabiyo xogayaha guud ee waxaa loo soo gaabiyaa ribaxsad ah ayuu yiri. sanadkii 2001 Annan iyo qaramada midoobay waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize, waxaana si toos ah loogu magacaabay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo aad loogu amaanayay dadaalada uu ka sameeyay arrimaha bini'aadanimada. isla sanadkaas ayuu dib ugu guuleystay doorashadii xilka xogayanimo, laakiin dhibaatooyinka waa ay sii socdeen. sanadkii 2003 Mareykanka oo ahaa mid ka mid ah dhinacyada ugu waaweyn ee taageera Annan ayaa ku dhawaaqay in uu dagaal ku qaadayo Ciraaq, oo ugu dambeyntii Mareykanka waxa uu ka tallaabsaday qaramada midoobay waxaana uu weeraray Ciraaq isagoo kaashanaya xulufo iskood markaasi u raacay. arrintaasi waxa ay xurguf ka dhex abuurtay Annan iyo sidoo kale wadanka ugu awoodda badan adduunka. goor dambe ayuu waraysi uu siiyay BBC-da waxa uu ku sheegay in tallaabada weerarkaasi lagu qaaday ay ahayd mid sharci darro ah. kala qaybsanaanta cusub ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Annan waxa ay sababtay in dhibaatooyin ay soo wajahaan isaga kadib markii ay soo baxday sanadkii 2004 fadeexad saliid cunto ku bedelasho ah, taas oo weeqday xogayaha guud shaqo ahaan iyo shakhsi ahaanba. 1938 waxa uu ku dhashay Kofi Annan magaalada la yiraahdo Kumasi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ghana. 1962 waxa uu ka shaqo bilaabay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneva ee Switzerland. 1965 waxa uu guursaday Titi Alakija, waxa ay leeyihiin 2 caruur ah oo wiil iyo gabar ah. 1984 waxa uu guursaday Nena. 1991 waxa geeriyooday walaashiis oo ay mataanaha ahaayeen. 1993 waxa uu noqday madaxa howlaha nabad ilaalinta qaramada midoobay. 1997 waxaa loo xushay inuu noqdo xogayihii guud ee 7aad ee qaramada midoobay. 2001 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize. 2006 waxa uu ka degay xilka xogayaha guud ee qaramada midoobay 10 sano oo xilkaasi hayay kadib. 2012 waxa uu noqday xogayaha gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan jaamacadda Carabta, gaar ahaan arrimaha Syria. 2013 waxa uu ka noqday madaxa duqeyda urur u dooda nabadda. 2016 waxa uu hogaaminayay guddi la talin ah oo aaday gobolka Rakhine State ee Myanmar. barnaamijka saliidda oo bilowday sanadkii 1996 ayaa ku qotomay in saliidda xadidan laga iibiyo Ciraaq oo ay cunaqabatayn saarneed, isla markaana loogu bedelo adeegyada bini'aadanimada sida cuntada. hawshaas ayaa muddo gaaban kadib waxa ay hor istaagay qaar ka mid ah dhinacyada ku lug lahaa sida kuwa ka ganacsada, saraakiisha qaramada midoobay, siyaasiyiin caalami ah iyo diblomaasiyiin. balse dhibaatada ayaa sii korortay markii ay soo baxday in wiilka kaliya ee uu Annan dhalay oo lagu magacaabo Koja uu lacago laaluush ah ka helay shirkad markaasi loo igmaday inay kormeerto habsami u socodka barnaamijka cunto saliid ku bedelashada. baaritaano la sameeyay sanadkii xigay waxa ay xaqiijiyeen inuusan wiilkiisa taageerin arrintaas, hase ahaatee waxaa lagu helay inuu ka gaabiyo la socodka howlaha barnaamijkan. Mareykanka gudihiisa siyaasiyiin fara badan ayaa ka dalbaday inuu xilka iska casilo. jawaabtiisuse waxay ahayd maya, lagama yaabo. laakiin 18 bilood kadib bishii December ee sanadkii 2006 xilka ayuu isaga degay. markaas waxa uu ahaa da'da 70 sano. isagu iyo xaaskiisa labaad oo ah qareen u dhalatay Sweden oo lagu magacaabo Nena waxa ay isguursadeen sanadkii
1984 markii uu xilka iska casilay, waxaana ay go'aansadeen inay aadaan dalka Talyaaniga si 6 isbuuc ay ugu soo nastaan. wargeyska The Guardian waxa uu soo tabiyay in markii dalka Talyaaniga uu 1 isbuuc joogay uu ku caajisay, waxaana ku soo xoogmay dad dhalinyaro ah oo doonayay in ay sawir la galaan. nasiib darro waxa ay ku qaldeen jilaaga filimada Mareykanka ah ee lagu magacaabo Morgan Freeman. isagoo aan doonayn inuu dhalinyaradaasi niyadda ka jibiyo ayuu qalin ugu saxiixay magaca Mr. Freeman, kadibna wuu ka cararay. sanadkii 2007 ayuu aasaasay hay'ad uu ku magacaabay Kofi Annan Foundation, taasoo ugu talagalay inay ka shaqeyso arrimaha la xiriira horumarinta dunida iyo amniga nabadda. sanadkii xigayna waxa uu hogaaminayay howlgalkiisii diblomaasiyadeed ee u soo hooyay guusha ugu wanaagsan. waxa uu gacan ka geystay dhismaha heshiis dawlad awood qaybsi ah oo dhaxmaray hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga iyo madaxweynihii hore waddanka Kenya. heshiiskaasi ayaa soo afjaray qalalaase daba socday muran ka dhashay doorashadii Kenya ka dhacday sanadkii 2007, taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof, halka 300,000 oo ruuxna ay ka barakaceen. sanadkii 2012 waxaa loo magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya, isagoo markaas u matalayay jaamacadda Carabta. sanadkii xigay Annan waxaa loo magacaabay inuu madax ka noqdo ururka duqeyda oo ah urur uu aasaasay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela, kaas oo ay ujeedadiisu tahay in la isu keeno hogaamiyaashii hore ee caalamka si ay wadajir uga shaqeeyaan arrimaha nabadda iyo xuquuqda aadanaha. sanadkii 2016 kadib codsi uga yimid hogaamiyaha dalka Burma, waxa uu horkacayay guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeyay xasarada la xiriirta qoomiyadda Rohingya ee dalkaasi. Annan waxa uu sii waday inuu ka shaqeeyo arrimaha saameynta ku leh caalamka sida isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka kale. wuxuu ogaaday in howlgabnimada ay tahay shaqo adag, ayuu Annan isaga oo kaftamaya ku yiri waraysi uu siinayay BBC-da markii loo dabaaldegayay munaasabadda dhalashadiisii 8aad.